لا دوغا وابن فهمي وايو مرضن بالله يفسره لا دوغا ما بنانا isaga iyo wixii la mid ah ciyaaraha la midka ah sida mesela dublado kale shaxda turubka ciyaaraha baabka ku yimaado oo dhan ma banaana sharcan laana waxa ku jira mafaasid aad u fara badan waxa ku jira idaa'atu al-awqat bima la fa'idata fi waqtigi oo lagu luminayo waxaan faa'iido lahayn nabigana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la yaani ruuxa islaamnimo wanaagiisa waxa kamida waxaan faa'iido u lahayn inuu isaga tago waxa kale oo ku jira marar badan waajibaadka lagu dayaco salaadii oo lagu dayaco cilmiga barashadiisa oo lagu dayaco waajibaadka oo lagu dayaco waxa kale oo ku jira oo shabahda baasha la yiraahdo nardashiirka wala yiraahdo nardashiir baa jirto dublada iyo shaxda iyo kaagdho noocaas oo kala iyo turubkay oo waxa xadiid baa ku yimid حديث بريدة في صحيح مسلم غير كيف كيالا النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه عيارة الروحي عيارة ابو النبي صلى الله عليه وسلم ليلة هذا نردشير كليلة هذا روحي عيارة ابو النبي صلى الله عليه وسلم وحلمي دي هاي روح قعمه سمر مريي او كلا هيلي دوفار يديكيس ruux gacmaha gashaday oo gacmaha ku dharoobay doofaar hilibki iyo dhiigiis ayuu la mid yahay nabi sallallahu alayhi wasallam saas macna marka waa ciyaarta dublada iyo turubka iyo shaxda iyo muxuu ahay taa hadda aad sheegaysan laandhuuga la dhahay iyo kulli isku meel bay ku imaanay mafaasidaas ay leedahay oo shariicadu u diidaysa sida qaalibka ah fasaqada iyo dadka waxa ciyaara diintu ku yarta ruuxa meelahaas oo kala bartana suxbadiisu waxay u badanaysaa dadka fasaqada inuu ku dhex jiro diin la'aan buu ka qaadaya waxyaalaha loo diiday ka mid tahay waxa kale oo ka mid ah haday inta la dheertahay in lacag lagu kala qaadanayana waa khamaar marka oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la sabaqa illa fi khuffin aw fi hafirin aw fi naslin sideedaba ciyaar wax ku yimaada oo wax lagu kala qaato inta lagu tartamo xoolo lagu kala qaato saddex wixii ka baxsani waa xaraan waa saddexde fardaha waa mid labaadna waa geela tartanka geela lagu tartamo mid saddexaadna waa toogta iyo shiishka ama ha noqdo leeb iyo falaad iyo ama ha noqdo qoryaha iyo qalabka lagu dagaalamo wixii shiish ah ama tartanka geela ah ama tartanka fardaha ah inta wixii ka baxsan oo ciyaara wixii lagu kala qaato waa xaraam buu nabi sallallahu alayhi wasallam ma banaana waana nooc khamaarka kamid marka haday noqoto in xoolo lagu kala qaatana dambi siyaadiya khamaar bay siilada hadaan xoolo lagu kala qaadanayninna shariicadu ma dugsiga iqra online academy bushaaradani waxay ku socotaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ee adduunka ka joogaan in haddii safar dheer iyo waqti badan uu kaaga bixi jiray barashada quraanka hadda waxaad ku baranaysaa adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo dugsiga iqra online academy duruusta oo sida joogtada ah u bixiya waxaa kamid ah quraanka kariimka ah iyo higaada culumta shariicada islaamka akhriska iyo qoraalka luqadda carabiga iyo tarbiyada awlaada haddaba isqoristu way socotaa wixii faahfaahin ah kala xiriir nambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda